madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan golaha wasiirada oo ay hogaaminayaan wasiirka amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Ducaale Islow iyo wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye. ugu horeyn madaxweynaha ayaa soo dhaweyn kadib waxaa la geeyay qaybta nasashada ee garoonka diyaaradaha Muqdisho halkaas oo si wadajir ah ay warbaahinta ugu hadleen madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye. ugu horeyn Cabdi Maxamed Sabriye wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in ay farxad weyn u tahay in magaalada Muqdisho ay ku soo dhaweeyaan madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo wafdigiisa. waxaanu yidhi maanta waxaa sharaf iyo farxad noo ah inaan halkan ku soo dhaweyno madaxweyne Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Jubbaland oo halkan howl u yimid runtina in badan oo ka tirsan golaha wasiirada iyo labada aqal ee baarlamaanka iyo wasaaradduba ay ku soo dhaweynayaan wasaaradda arrimaha gudaha halkan ku soo dhaweynayaan madaxweynaha kolla madaxweynuhu howlihii uu yimid uu dhex geli doonaa haddii aan la yiraahdo. annaga waxaan rabnaa inta madaxweynuhu joogo inaan soo dhaweyn diiran iyo marxabayn siino sida waajibku yahay. waxaan rabaa marka intaa kadib dhammaan khiyaarta u timid maanta madaxweynaha inay soo dhaweeyaan wasiirada iyo xildhibaanada iyo senatarada halkan yimid iyo dadweynaha aeroboortka u yimid maanta inay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam soo dhaweeyaan. aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa. waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow. intaad joogtana waxaan rajaynaynaa inaad raaxa iyo danihii aad u timid oo aad gudato guulna ka gaarto ay kuugu dhammaato insha Allah. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa dhinaciisa sheegay inuu ku faraxsan yahay soo dhaweynta heerka sare leh ee loogu sameeyay magaalada Muqdisho isagoo sheegay in howlaha halkan u yimid uu guda gali doono. waxa uu sheegay in madaxda dowladda federaalka wada hadallada iyo kulamada ay yeelanayaan diiradda lagu saari doono arrimo kala duwan. waxa uu si gaar ah u xusay arrimaha amniga iyo siyaasadda uu sheegay in wada hadal dheer laga yeelan doono. wasiirka arrimaha gudaha saaxiibada kale wasiirada amniga kalluumaysiga dhaqaalaha iyo inta kale wasiirada kale iyo xildhibaanada iyo saraakiishaba intaba halkan lagu soo dhaweysay aad baan idinkaga mahad celinayaa xaqiiqatan soo dhaweynta qiimaha iyo qadarinta leh ee soo dhaweysay. aad baan ugu faraxsanahay inaan caasimadda maanta soo booqdo. waxaan odhan lahaa wasiirka khayr Allah ka siiyo soo dhaweyntii laakiin waxaan rabaa markuu madaxweynaha ka hadlay inuu yahay madaxweynaha dowlad goboleedka haddii madaxweynaha kaliya ku daa waxaan ka cabsanay in loo qaato markaas inuu si kale marka had iyo jeer waa in la raaciyo dowlad goboleedka haddii kale madaxweynayaashaas ku khaldamaya. taas markaan ka soo gudbo waxaanu imid safar shaqo oo magaalada Muqdisho aan ku soo gaarnay. waxaan qabanaynaa ay tahay wixii dan iyo dalka ka dhaw caasimadda waddanka madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii iyo aqaladii iyo wasiiradii waa kulli wada joogo dee shaqada inta badan waddanka laga hayo caasimadday ku xidhan tahay. marka bal inaan is aragno gaar ahaan wixii tale ee la kala qaadan karo ama arrimaha amniga jira ha noqoto ama kuwa siyaasadda ha noqotee wixii aanu ku wada hadalana insha Allah dib baa laga ogaan doonaa. laakiin aad baan ugu faraxsanahay waan idinka mahad celinayaa soo dhaweynta waan idin soo dhaweyn doonaa insha Allah. annaguna gurigayga waa nimid idina gurigiina ku soo dhawaada. madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo xildhibaanada dowlad goboleedka Jubbaland ay safarkiisa ku wehelinayeen ayaa intuu ku sugan yahay magaalada Muqdisho waxa uu kulamo kala duwan la yeelan doonaa madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee Soomaaliya.